يعني قرحي جفتي أو مركي دهين أنا وحير تلاوين يرى هروق هذا نه حبضي وحواي isla markii wax niideeda ku jirta asxaabtii iyo wiilkii yar oo ila dhashay niideeda ku tagana waa soo laabtay Allah raxmado qofka ugu hor arkay meedkiisa ajeeg garay walaalkii ila dhashay waxa cad meel Allah raxmado dhammaan dadka weerarkan ku dhintay waxa ay ahaayeen dhalinyaro shacab oo aan waxba galabsan badi ka mid ah dhalinta geeriyootay markaas ay si jameeca ahaan u soo wada tukadeen salaadii maqrib qofkiisa soo miidaamiyey ayaa soo dhex fariistay kaasoo aysan garan karin inuu ahaa cadowgii nafta dhaafinayay waxayse ka war heleen jugta qaraxa iyo uura cirka isqabsatay iyagoo intaasi kadibna is arki waayey maadaama ay noqdeen kuwa dhintay kuwa dhaawaca iyo in yaroo badbaada dadka weerarka ku geeriyooday oo 10 gaaraya 7 ka mid ah waxa ay ahaayeen saaxiibo gaar ah oo kubadda wada ciyaarayay wax wada bartay qaarkoodna ay wada shaqeynba ka dhaxay kala meesha danaga gashay markii aan ka soo dhamaano waa badneen waxaas dhahan bal intii maaragtay inta kala tagin wax xirshaaha caba waan iska qadar ilaahay heedshaha cabitaankiisa inta loo keenay anaka u fadhinay wax saan u dhawaan alxamdulillah waxa waa wixii qadarnaa dhacay oo qof walba oo dareemi kara xanuunka ilaa dhalinyarada dadka saas ugu dhow inaa weesid inta wax la filan kara maaha laakiin waa qaadanayna waa qadarta ilaahay wallahi waa badneen waxaas leeyahay meesha waxa ku fadhinay ilaa 12 qof hadayna ka badneen balse sida hadda igu maqaalka ah 6 qof waa dhinteen oo dadkeeni asxaabtii iyo walaal ila dhashay ku jiro waa dhinteen hadda markaas ogaado ka dultaga qaarkood nimeedkooda arkayba markay wax dhacaan marka iyo alxamdulillah dhaawac fudud iyo kala asin dhaawaciisa aad u yar dareenya oo koom ku jiro sheegay dhalinyarada kala saaxiibada ilaahay ku jiro iyo khaalita kala ayaga dhaawacooda alxamdulillah ani ayaga ilaahay noo yasir alxamdulillah marka iyo wixii kala dhinteen de Allah raxmado inta badan dhalinyarada meesha joogto waxaas leeyahay kala bar am ka badan way dhinteen ba alxamdulillah ani fireer yara igaari oo mid doonta midna maxaa la ii sheegay abdominal caloosha dhankeeda ee gacanta wixii aad sheegto way u dambi wax ma aragtay markii wixii dhaco la fiiriyo wax aad u nugul oo saalinay gaar alxamdulillah waan nabad qabaa lugaheegan ku socday alxamdulillah ilaa saddex xamal markaa xaqiiqsaday oo ku kalna u jeedo runtii waa dareemi kartaa wax laga sheekeyn kara maaha alxamdulillah wax adag ah soo marnay oo ilaa hadana aan ku jirno laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo diinteena ya insha Allah noqonayso wax walba na farayso marka waa sabrina insha Allah dhalinyaro wax baratay dalkooda joogo farxad ku wada maalin kasta iska warhayo maanta waxaad dishay gacan ka xaqtaran walaaleen shal laga wada dhintay dhamaantood waxa aan kuwa nuweyn wax kale oo aan dhihi karo male maanta aan ahayn ilaahay dhamaantood waxa waa janno inuu ku jeeyo maan dhalinyaradii abdoorkii saaxiibadeeni walaalaheeni naga dhintay ilaahay oo naxariisto marka hore ruuxantii waa geeri yani mutafajaca waaye aad ugu naxnay waliba markii walaalka ama wax waaye qofka kugu dhawaad uu ka dhinto xanuunkeeda aad u dareemaysaa saacado goor kugu dambeysay qadar xaal ilaahay oo naxariisto oo walaalkay oo ahay 5 sano wax soo barnaynay wixii dhacay yani masiibo ahayd hadii masiibo dhacdana quraanku wuxuu nafarinaa yani ilaahay u laabano ilaahay subhanahu wa ta'ala ya mar walba u laabanayna wixii dhacayna masiibo ahayd ilaahay subhanahu wa ta'ala sabr